maanta Ethiopia oo damacday xeebaheena inay soo degto oo ay qasab ku soo degto Taiwan diidnay xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya anigoo la hadlaaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay maanta inaad gacanta midig iska goyso ayaa ku dhaanta inaad saxeexdo heshiis Ethiopia siinaya. Ethiopia does not need a naval force because Ethiopia does not have a coast to defend. Bismillahirrahmanirrahim. Anigoo Ciise Axmed Nuur Barra ka soo hadlaya Boorama waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Maanta Ethiopia oo damacday xeebaheena inay soo degto oo ay qasab ku soo degto Taiwan diidnay. Hase yeeshee maanta shucuubta Geeska Afrika waxaan u sheegaynaa in nabadgelyadii ay ciriiri ku jirto ama ay halis ku jirto sababtoo ah Ethiopia oo damacsan xeebaha Soomaaliyeed inay xoog ku qaadato dawladdii Soomaaliyeedna difaaceedii uu aad u liito. maanta halkan waxa ka hadlaya madax dhaqameedyadii magaalada Boorama ee gobolka Awdal. anigu si hadalka oo furan oo gaaban haddaan idhaaho hadalkan furayo oo gaaban waxaan oranayaa madaxweynaha xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya anigoo la hadlaaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay maanta inaad gacanta midig iska goyso ayaa ku dhaanta inaad saxeexdo heshiis Ethiopia siinaya dhul Soomaaliyeed iyo bad Soomaaliyeed. sidii aan hore u sheegnay Ethiopia xeebaheenu way u furan yihiin markay ganacsi xalaala doonayso. xalaal duhur baa la maalaabay Soomaalidu tiraa. Ethiopia xeebaheena iyo xeebaha Jamhuuriyadda Djibouti labaduba way u furan yihiin markay ganacsi doonayso. wax kale oo doonayso lama garanayo. waxa kale doonaysa waa hawlgal military. hawlgal military-na mayaan nidhi. sidoo kale waxaan intaa ku darayaa Ethiopia ciidan badeed bay hadal haysaa laakiin Ethiopia uma baahna ciidan badeed sababtoo oo ah Ethiopia xeeba ay difaacdo maanta ma leh. Ethiopia waxay leedahay ciidan dhul iyo ciidan hawo oo ku filan. ma garanaysaa Ethiopia markii Eritrea ay ka madax banaanaatay madaxdii Ethiopia 1993 Ethiopia faraha waxay ka qaaday ciidan badeed. Ethiopia uma baahna. Ethiopia does not need a naval force because Ethiopia does not have a coast to defend. Ethiopia gave up on a naval force and naval bases and they don't need that. One in Salam,